waxa hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimi oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Somaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka kale ee lacagaha u dirayna uu ka mid yahay marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anaan qof jiran ahaanaynin dambiga ka soo baxana aniga qaadaya arrintaasna fagaare shicibka Somaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo in alaaleeyo inta ku shaqale ee kiisaska samaysana aan laga qarinaynin ayaa lagu baaraya maadaama aan cayinay goobihii lagu qabanayay banaanbaxyada waxaan halkan ka cadaynayaa shicibka Somalilandna u sheegayaa maadaama si saaxiibtinimo ah oo nabadgelyo leh oo Somalilandnimo leh oo wadaninimo leh aanu una soo dhaweynay xuquuq badan oo ay leedahay xukuumaddu iyo aniga laftaydu wasiirka daakhiliga in aan maamulo aanu ku bedelanay in aanu arrinka muddada muranku ka taagnaa isfaham ka gaadhno waxaan halkan ka cadaynayaa meel kasta oo aan ahayn goobihii aan anigu cayimay oo xeer number 51 2012 qodobkiisa tobnaad iyo tobnaad iyo koob iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad oo xuquuq aniga ii siinaya in aan maamulo cid goob kasta oo aan kuwii la cayimay aan ahayn waxa weeye waa sharci darro waa kow waa laba waa arrin lagu doonayay in Somaliland nabadgelyadeeda lagu burburiyo waa arrin lagu doonayay inay nabadgelyo darro iyo khalkhal nabadgelyo ay ka dhacdo waa saddex musharaxa xusbiga wadani ee qolankii anigu aan qoraalka u qoray diiday inuu ku yimaado ee gudoomiyaha kale Faysal Cali Waraabe uu ku yimi ee labada maalmood noo socday ee iman waayay qaraarka uu iminka caawa jeedinayaa waa khalkhal nabadgelyo darro oo dagaal Somaliland ka abuurayo shicibkaan u sheegayaa waalidka carruurtooda lagu khamaarayaa baan u sheegayaa dadweynaha shicibka ee Somaliland baan u sheegayaa arrinka kale waxa hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimi oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Somaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena booliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka kale ee lacagaha u dirayna uu ka mid yahay markaan golaha intan lay ka sheegayo marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anigoo shaqadayda hore ee militarigu ahaan jirtay qaybta militariga la yiraahdo intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanayo daadana maanta jooga xilkana haya anaan qof jiran ahaanaynin dambiga ka soo baxana aniga qaadaya arrintaasna fagaare shicibka Somaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo in alaaleeyo inta ku shaqale ee kiisaska samaysana aan laga qarinaynin ayaa lagu baaraya waxaanu muddo ka warwareegin ilaa iyo bishii May horaanteedii saaxiibayaal baynu leenahay daneeyo Somaliland saaxiibayaal baynu leenahay bulshada international community-ga ah maxaan ku rahdaa ka tirsan waxa war fara badan inagaga socday
bishii may horteedii ilaa iyo abril somalilan diyaar garooba isjira bisha may qarxisyo ayaa idinku soo socda international community oo dhan baa inooga soo warrantay ciidamadeenna oo dhan baa heegan la wada geliyey halkay inala joogaan iminka saraakiishii shale ee ciidanka biliiska sarkaalkii taliya ku-xigeenkii koobaad ee ciidanka biliiska cabdi xasan halkan uu joogaa generaal ibrahim halkan uu joogaayo operationska biliiska ka mid a arrintaa markaa istanbay baynu ugu jirnayo waxyaalaha qaarkood waxa aynu uga taxadiraynay inaynu iska ilaalino inay cid inoo soo baxdo qolada saaxiibada iyada ee xusbiyada mucaaridka ah awalba waanu wada hadli jirnay awalna waanu isku buuqi jirnay xilligani waa xilligii political seasonkii laakiin waxaa la yaab lahayd inay diidaan maalintii ay dhiin may ciidamadeennu dabaaldegayeen inaanu ku barino annagoo 12 qofa inaanu soo gaadhsiinay habeenka xafladda madaxtooyadana haddaa isleedihiin kulmiye iyo dowladda meesha haysataa maaragtay idinku shimbira waaqleynaysaa xabaha imanina iska daaya laakiin maalinta ciidamada qaranku ay dabaaldegayaan dee waa ciidamadiinnii qaranka ee maalintaa u kaalee taana way nagu diideen ayaantii dhaweyto aniga iyo taliyaha biliiska aanu shirka jaraa'id qabanay guddoomiyaha xusbiga wadani 7 bayj oo uu ku xaaraantimaynayo ciidamada biliiska somalilan iyo ciidanka qaranka ee militariga waxaa ku qaran waa la hayaa waan soo bandhigaynaa mar horena waa la akhriyey netkana way ku jirtaa facebookana way ku jirtaa uu leeyahay saraakiisha ciidamada qaranku dadka waxay ula dhaqmaan sida cadowga ninka kelmadda iminka yidhaahdee aagga hore jooga shicibka jooga ee ay ciidamada qaranku la degan yihiin hadduu ka nabadgelo inaanay dilin ciidamada waxay odhanayaan noo xidha oo ay sababtu tahay gabadha xitaa foolata ayagaa ka soo qaada halka forontka u shishaysa ayaga ama laascaanood keena ama burco keena ciidanka waxaan xasuustaa inaan tagnay meesha lagu dhahda laascaanood inay odayaashu ka hadleen in odayaasha ugu waaweyn laascaanood oo hadda iminka dee nin da-a ah ayaa axmed seelaaye wuxuu ku yidhi madaxweynew haddaanu ciidanka iyagaa ammaano waxaanu ka baqaynaa inaad naga beddesho ninka ciidanka sidaa u laxa jeclaysanaya iyo ragga doonaya inay berrinta dowladda noqdaan ee arrimaha noocaasa ka hadlaya maxaanku idhahdaa waa kaafiyo kala dheeri macaawo dhammaan noocyada ciidamada amniga ee somalilan ciidanka biliiska ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka immigrationka ciidanka maxaanku idhaahdayey asluubta oo guddigood iyo ciidanka qarankaba oo loo diyaariyey inay dadka mudaaharaadayaasha ah berrinta ka shaqeeyaan nabadgelyadooda waxaan caawa faraya ciidanka aan idin farayno ee idin leenahay dhaxantana u seexna cadceeddana u jooga waa kii warqadda 7 baysha idinka qaadaya idinka qorayay inay xaaraan tihiin oo aydaan ciidan ahayn hadda doonayo inuu berritana dowladda noqdo idinkana idin xukuma laakiin waxaan idin leeyahay dad waxaad tihiin waayo araga dadkii somalilan meesha adag ka soo bilaabay baad tihiin dadkii idinkuman mushahar qaadan oo raashin lahayn ugu horrayntii ciddii aasaasantay institutionadii ugu horreeyey ee aasaasmay baad tihiin waxay idiin qabaan iyo ceebeyntooda ha eegina qaranka aa u halgamaysaan eega ee calaamadihiisii qarannimada ha aasidaan waxaan idin faraynaa in aad berrito arrintaa mudaaharaadka si fiican uga shaqaysaan cid allaale iyo ciddii goob aan loogu talagelin mudaaharaadka ka qabanaysaana nabadgelyo darray qaranka ku abuuraysaa iyo khalkhal tallaabo sharciyabaa ka qaadaysaan mas-uuliyadda xadgudubka sharci khalkhal abuurka aan lagu samaynayo goobaha la xadiday goobo aan ahayn waxaa mas-uul ka ah oo keli ah labada xusbi mucaarid madaxdooda guddoomiyeyaashooda musharaxiintooda madaxweynaha
ayaa mas-uul ka ah cid kaloo mas-uuliyadda la qaadaysaana way jirta ma jirayso sharcina dalka wuu jiraa sharcigaana waa la isticmaali doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihin